Soomaaliyeed meel walba joogto dhamaantiin way salaamayaan horta arintan cirka isku shareereysay dad badan yani Soomaali oo dhan badhe way ka soo hadashay xoogaa waxa waa dhaxan zaid ah jirtay xoogaa jaakada iska soo bedelay horta sidoo Ilaahay ila ogyahay arinta uga hadlaaya Kamaalna yani waa la hadli karay arinta waxa sameeyay horta anaa sameeyay xiriir waxaan sameeyay yani dadka ayada relative keeda ah ina xiriir la sameeyay oo yani raadiyo habeenkii aan seexanin marka Kamaal u bandhigay marka Kamaal waxaan dhahay arintan saan loogu hadlooyo marka ma adina raadisid information marka waxa dhahay gabar ani yani idahooyso oo dhaariyay oo ani idahooyso yani ma qabo yani mana la qabo ciyaalna ma dhalin yani gabar way og tahay cidla ma ugu tagaa dhahay marka ani marka qadanta waxay u qasabtay ina ani raadiyo kaligay marka ani iyo waa badneen ani iyo marka yar kale oo walaalkay Maxamed la dhahay isna waa raadinayay dhinaciisu ka raadinayay marka information wax badan ay istutusnay dad marka Facebook ay dad ayada u dhadhow Facebook dad mar hore isla hadashay Facebook waa jira dadka dhan waa arkeen mar dad ayada comment ka bixisay dadkaas raadiyay mustaqaaniinaan lahay Ilaahay ma kula og yahay dad ani waxa raadsanay oo mas'uuliyiin ah marka Ilaahay ma kula og yahay wuxuu dhahay Ilaahay waa ila og yahay hadaa rabtid ay sheegi kartaa yani wax la qarinayo ma aha hani inay wax dhashay ciyaal ay leedahay wax dhan waa jiraan hadana waa ka soo tagay nin kale waxa helay adeer asna la dhahay Ismaaciil Afro soo ii sheegay nin wanaagsan ah si wanaagsan wax ii fahansiiyay gurigiisa ku soo kortay gurigiisa oo yani ay ku soo aroostay ay ii sheegay aan arintii waxa ila sii noqonayso hurdada waa iga sii tagaysay ma fahamtay ilaa hadda ma seexan sidii xalay ilaa hadda marka arintii waa yani arintii meesha horta xaqiiqada meesha ka soo baxaysay dadka dhan been hadana walaasheeda la hadlay way ii sheegtay eeda kala jirta ayadana Canada joogto oo ayada habareerteed farxiin la dhahayo maleena farxiin habareerteed wala hadashay adna ana la hadlay farxiya la hadlay waxa la hadlay eedo xamburo in la dhahayo maleena ayada عمبر الله هذا وحي لن قف يعني هدو عيال لماذا كو يقاني حتى waxa ku dheelayso sheegaya ma fahamtay marka wax aqliga galaya la rabaa markii dambe arintii marka saas u ogaaday ee cadaatay Kamaal marka waxaan dhahay niyo horta wallahi waa ka shakiyay ana waxaas dhahay Kamaal arinta misl ogiyeen wallahi oo billahi habeena kurbeysna inaan isla ogeey Maxamed ma waa ogaaday markii isina aniga marka maya ilma rajisoo kala xarag ku xiran yahay aniga inaan guulis Maxamed aqli loo baahan ma sax waaye laakiin hadana waa raadiyay hadana yani dadkii kala family kala waa isoo xiriiriyeen waa isla hadalnay dhowr mar isla hadalnay yani kool dheer waqti dheer waa wada hadalnay wax waa isfahansiinay markii dambe xitaa aan waxa u fikiray xoogaa maskax ahaan ma loo haystaa markii dambe arintii dhanaaso yani arintii dhan markaas soo ogaaday marka waxaan dhahay niyo Kamaal saana jirto arinta dhanna waatana hatta adi indhaha istiraysid ma sheegi karo faame waxa familka hooyada aabaha ku dhaheen adeer iyo dadkii oo YouTube soo la soo fadhiisanayo arintiina saan ay tahay cirka isku shareereysay arintan fiiri arintii marka Kamaal ku soo wareejiyay Kamaalkii marka waa fahmay Kamaalkii ama kaaga noqotay waay marka ani yani waay isaan u sameeyay oo bilaabay markii uu dhaho ani igu sameeyay waay marka ayadii marka waa la xiriirnay marka arintana waxay tagtay serious ma fahmay dhaar ay tagtay wax walbo yani magac Ilaahay ka weyn dhaar ay tagtay arintii marka xaqiiqadii wixii aan soo ogaaday informationkeeda hadda wax aan la sheegi karin yani xaqiiqooyinka dhan waxa jirto wax oo family issue ah oo waliba top secret ah markaas soo ogaaday ayadana aan la socodsiiyay ay fahantay markii dambe yani alxamdulillah afkeeda ka qaratay ma fahantay marka Kamaalna markaas meeshaas ku qancay marka arinta Kamaal u sheegay arintii marka ayada gabadhii afkeeda ku qaratay marka Kamaal marka waxaan dhahay arinta ka hadal marka ina ka hadashid ay sheegtid waay wixii bayaan yani wixii oo aragtay
ilaah kula og yahay صح وأنا وحن قرن مع صوته حتى فيديو أندور دقيقة دوين حتى نص ساعة منهم دقيقة دوين كدب إذا مركي فيديو وعدين تون سوفريسي وحلا قرنا يا مجيء لكن مركي هراء قفك عليك حاس كاجي عديس كلها أنا إلهم بدلين واللي يحكم سومرين وأمينين صح إلى خوف كان مركز كاسيس وجي مخر محمود haddana midda kale dadka fahansiinaya jirto marka la dhahayo qofkan yani hiblaayo wasaana ku samaysay yani ma dhihi karo yani adoo qof weyn ayna dhahdina yani ma wanaagsaneen laakiin si wanaagsan wax waa loo sheegi karay laakiin yani waay qofkan haduu dhihi lahay waxayse babligu soo dhigtay arooska ma qarsaneen nikaaxa ma qarsaneen أنت شكوى دلين كرتا أسح حتى شكوى كل دلين كرتا إنا كحساب يعني تاس إنا حساب تجلسه هاد قف كان واشكين كرا عدين تس واحد تس إتابسية جرتو عدين تس واتنا عدين لكن هذا له يعني قف كان أسعد علي أسيجن كله مدلين يعني confuse عن قناة ما فهمته مركا أرنتنا وحاف في عن مركا حير كان أكل مريسو إتوسي أو إتابسي مركا ما الله رأي إنا هذه يعني ما لو باهنين marka adna yani waa ku garaabaya yani wax yani oo ciyaal qof yani ciyaal dafirayso yani xogaa wax noqonaya wax la yaab leh dadka dhan ay la yaabayaan oo qof binaadan sameeyeen kullee wixii ku kalifay anaga ma sheegi karno laakiin xaqiiqada markaa soo ogaanay yani wax laga talaabsan karo maaha wax laga socon karo maaha wax in dadka loo bayaaniyo u baahanna waa sida la ajligeeda soo fadhiisanay oo arinta sida saxda ah u jirto oo aan ilaahay ila og yahay ninkana ilaah ula og yahay marka inaan soo gudbinay marka intaas wixii ka dambeeyo marka aan wax la dhihi karaan ma aqaani marka kamaale u talaa horta intaas wixii ka dambeeyay maxamuud dad badan asla hadlay dad badan wax u cadeeyay ilaa haddana waa isla xiriirina ha aniga laakiin hal qof aan la hadlay hawreerteed maama hawreerteed maamadaas ma sha Allah si fiican ay wax walba igu bayaanisay maamadaas wax walba markay ii sheegtay waxaan xaqiiqsaday marka hore aan xaqiiqsaday ilmaha in ay hani dhashay markii aan la tagina kadib oo dhaar iyo kitaab ay isla gaartay waxay ii cadeysay ilmaha in ayada ay dhashay kadib maamada aan weydiiyay sababtoo ay qof ciyaalkiisa ingiriisi ka galay waxa leeyahay qofkan si maskaxiya ma loo haystaa wax ma haysto marka maamada aan weydiiyay maamada waxaan leeyahay maxaa ku kalifi karo in ay dafirto ciyaalkeeda maamada waxay dhahday wallahi ani ma ogay dhahday laakiin waxa huwa ay dhahday in ay ciyaalka ayada dhashay waan laga yaabaa ay dhahday marar badan ninkaas in ay khilaafkooda badnaado ani si ayday dhahday way hal been ku daray family qusaysa inay sheegana ma fiicnaan laakiin maamada si ii sheegtay waa aniga arintaas waa gaabsanaa laakiin arinta muhiimada waxa way ciyaalka ma dhahay ani hani ninkaas xariga ku xiran ninkaas waa kala tageen ma dhahay wax walba kaas gadaal aska imaana aan xitaa cadeen buu haytaas in as khawri in ay kala tageen cadeen buu hay laakiin waxaan cadeen u helay in ciyaalka ayada ay dhashay kulli wax walba qoran waa dhaca wax walba adduunka waa laga arkaa dad badan aan arkay dhahayeen wax walba adduunka waa ka arkay nin rag oo uur yeeshtay oo ilmo laga soo jiiday leen la arkayni saxna way taas wax walba adduunka waa ka dhaca arintana social media ay soo gashay social media waxay soo galaan wax qarsan ma aha anigana hal mid aan khaldanahay hal mid aan galin ka bixnaa midaas oo in arintan markii koo ay cusbeed in aan rumaysan waayo ma ku indhaadaytay ma dadka yani runta yani waa ku in adeeg laakiin maxamuud ana ku imaadi naagta aan qabto cadeen la'aan waxaan ku dhahay ana qabo ma aamini adi cadeen u baahan tahay maxamuud oo naagtan ku dhagoysad may aad u dhaca kulubna aadan qadaa wa khayru khataa'un atawabun ana khaladkaas ogaan u sameeynin araggan inta ka bixina khalad waa gali sababtoo haddii aniga dambi waxas igu ahaan lahay anoo og aan aamusi lahay wallahi ilaahay il og aniga ma ogeen haddaan ogaan lahay qofka aamusay mi iyo arinkan wallahi baa ma idin sheegay familkayga aniga marar badan ay dhaheen kamaal arintan sax waa ama sixran tahay ama lagu sixir ama lagu taatno waxaas wallahi marar badan ay lahay waxaas ma ana waxa diira wax qiila wa qaala yani waxaas ama tahay waxa og tahay ya aad hawal iyo xaqiiqi in marqaati u haysan yani adna aad hubin mala sheego waxa noqonay xan mifahmay ilaahan ku xisaabtamay ay ma ogid xaaladda qofku waxa ogaan kara dhex taagan fahmay dad badan waa arkay
horta ilaahay dembigeena allah dhammaanteena marka waxaa waaye ilaahayna waxaa waaye qafuur raxiim waaye laakiin qof haddaa khalad ka gashid ama wuxuusan ahayn aa ku tilmaantay marka qofkaas inaad u tagtay asi uu ogolaasho oo ku cafiyo ma ogiya si kale yani ilaahay ma kugu cafinaayo ilaahay tiisuu kaa cafin karaa qafuur raxiim waaye marka arrinta meeshaysa ku egtahay marka kamaal ay hadda kula gudboon dadkana aa u sheegi kartay horta aniga arrintan ilmaha horta hani waa dhashay xaqiiq waay taas ayadana afkeeda waa ka khiratay sababta ay u inkirtay waxaas ilaa hadda aniga ma ogi dad badan ayaa isdhahay kamaal gabadhan xaaskeyga waayaa isdhahay hadda maxaa samayn doonaa hadda maxaa la gudboon ma rabi in social media aan ka sheego wixii aniga samayn doono hadda kadib waxaan samayn doono waxaas noqonaa waxyaaba aniga baraa